بسم الله الرحمن الرحيم ardayda dhigata dugsiyada jiilal jadiid namuudajiya gaar ahaan fasalada lixaad wiilal iyo gabdhaba waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa casharadii aynu si soo marin jiray xagga hawada waxaynu ku dhex jiray geeraarkii ciwaankiisu ahaa kaana siib kana saar ee uu tiriyey abwaan Abdullaahi Suldaan Timacade waxay noogu joogtay beydadka ah Soomaaliya calan taagta saakay noogu horeysay haddaynu halkaa ka sii anba qaadno geeraarkeenii aynu ku dhex jiray barashadiisa waxa uu yidhi abwaanku in sidayda tihiin iyo in kalaanan saxaynine in sidayda tihiin iyo in kalaanan saxaynine maxaa ka horeeyay Soomaaliya calan taagta saakay noogu horeysay Soomaaliya calan taagta saaka noogu horeysa calan ay Soomaaliya leedahay oo ay ka qaadato gumaystaha saaka noogu horeysa ayuu leeyahay haddaba bulshadii isagoo la hadlaya uu geeraarkan hortooda ka tirinayay amaba bulshadii ka soo qayb gashay xafladii loogu wanqalayay xorriyadda isagoo la hadlaya wuxuu leeyahay in sidayda tihiin iyo in kalaanan saxaynin inaa ila mid tihiin iyo in kale warama hayo laakiin anu haddaan iskaga kiin warramo buu ku leeyahay 3 wiig iyo maalmo 3 toddobaad iyo weliba dheeraad 3 wiig iyo maalmo 3 toddobaad iyo weliba maalmo haddaan soor cuni waayo haddaan wax cuntaa cuni waayo soor asal waxa la yiraahdaa shuurada laakiin imika wuxuu jeedaa cunto mar soor waxay noqotaa magac guud oo cuntada oo dhan soor waa lagu magacaabaa marna magac gaar ah noqotaa shuurada magaca gaar leh laakiin imika wuxuu jeedaa cunto buu jeedaa 3 wiig 3 toddobaad iyo weliba ayaamo haddaan soor cuni waayo haddaan wax cunto ah aan cuni waayo safrad laygama yaabo safrad waa gaajo weliba subaxii markaad soo toosto gaajada lala soo tooso ee halka labxada laga dareemo ayaa la yiraahdaa safrad iminka laakiin muxuu jeeday gaajo buu jeedaa safrad laygama yaabo inaan gaajooda suurtagal ma aha 3 wiig waa 22 cisho 22 cisho weliba ayaamo dhowr iyo 20 cisho haddaan wax cuni waayo inaan gaajooda suurtagal ma aha sababta aanu gaajoonayna waxa weeyaan waa calankan farxad uu ku faraxsan yahay darteed ayuu ku leeyahay cunto badan kamid yihiin safrad laygama yaabo sari mayso naftayda wax gaajo laygama yaabo oo sari mayso naftayda oo naftayda inay gaajo wax yeeshaa suurtagal ma aha saaxirkii kala guuray saaxirku waa qofka sixiroolaha baa la yiraahdaa saaxir imanka saaxirka waa abwaanku sheegaya waa gumaystihii Ingiriiska ayuu saaxir ku sheegaya saaxirkii kala guuray sareeyo ma nusqaamo weligaa kii sareeyay ahaw hana nusqaami oo weligaa hoos u dhicin wuu ducaynaya waayo cid uu ducaynayo leeyahay weligaa saree oo ha nusqaamin oo hoos u dhacyaan kugu iman waa calanka sareeyo ma nusqaamo aan sidoo yahay eegoe kaana siib kana saar eegada kaana siib kana saar kaa uu leeyahay siib waa calanka Ingiriiska calanku waa tan birta la suro birtii dheerayd ee calanka Ingiriisku uu sugnaan jiray maadaama haddii uu gumaysanayay ayuu leeyahay calanka Ingiriiska ka soo siib oo waxaad saartaa kaayaga kaana siib kana saar kala saaraya waa calankii Soomaalida kala siibayana waa calanka Ingiriiska ama calankii gumaystaha kaana siib kana saar way ka 80 sannadood ka 80 sannadood 7 waa maxay marka muxuu jeedaa sanad bii muxuu jeedaa ka 80 calankaanu sugaynaye
8 sannadood baanu calankan sugaynay buu ku leeyahay sahankiisa ahaynow ee aanu baadidoonkiisa ku jirayo 8 sannadood ayaanu calankan baadidoonkiisa ku jiray calankaanu sugaynay sahankiisa ahaynow calankii aanu 8 sannadood baadidoonkiisa ahaynow sahan asal waxaa la yidhaahdaa reer baadiyuhu reerku inta aanu guurin ayaa waxaa la diraa rag soo eega deegaankii lagu guuri lahaa dhul barwaaqa dhul roob helay dhul dooga amaba dhul cawsiye biyale rag soo daydaya oo soo odorosa ayaa la diraa intaanu reerku guurin markay raggaasi meel wanaagsan oo reerku ku guuri karaa ay soo arkaan ayaa dabadeedna reerku guuraa guuritaanka reerka hortii raggan la sii diray baa la yidhahdaa sahan laakiin iminka muxuu jeedaa sahankiisa ahaynow calankaanu raadinayneenu baadidoonkiisa ahayn 8 sannadoodow seerma weyda hilaacdayow seerma weydadu waa bilaha guga bil ka mid ah ayaa la yidhahdaa seerma weydo marka waa bil barwaaqo oo roobku aad u doo seerma weyda hilaacdayow calaashan wuxuu ka wada calaya waxaad noola mid tahay bisha seerma weydada la yidhaahdo ee roobka badani do ee barwaaqadu dhacdo ayaad noola mid tahay sagal maanta daroorayow sagalku waa gabalku markuu sii dhacayo iyo waagu markuu soo bariyayo daruurta ay cadceedu cilaanka ku samaysaa la yidhaahdaa sagal cilaanka ku samaysa maxaan ka wadaa markay cadceedu sii dhacaysa maqribkii iyo subaxa hore markay cadceedu soo baxayso haddii cirku daruur leeyahay daruurtaa cadceedda soo baxaysa fallaadhaheedu waxay ka dhigaan casaan bay ka dhigaan daruurtaa ay fallaadhaha cadceedu casaanka ka dhigaan markay cadceedu sii dhacaysa ama markay soo baxayso ayaa arday ahay la yidhaahdaa sagal maanta daroorayow daruur sagal ah oo maanta soo da-dayow calankii buu sheegaya uu leeyahay waxaad noola mid tahay daruur sagala oo weliba da-aysa siigadii naga maydhayow siigadu waa boodhkii siigadii naga maydhayow saqdhexaanu ahayn calashan madow mugdi baanu ahayn wuxuu ka wadaa calashan gumaystaana haystay saqdhexaanu ahayne kii soo saaray cadceedow calanku cadceed muu soo saarin laakiin cadceedu soo saaray uu sheegaya wax weyn waa xorriyadda kii soo saaray cadceedow saaxirkii kala guuraye sarreeyow manusqaamow aan siduu yahay eegoe kaana siib kana saar waayahay baydadka hore nuu soo marray macnahooda ka gudub saalixiinta islaamku dadka waa wanaagsan ee islaamka ahi sirta kay ku arkeenow halkaasi waxa weeyaan sirta kay ku arkeenow saahidiinta qur-aanka subcisaa jimcayaashiyo waaye sirtu waa waxa la qariyay ayaa la yidhahdaa sirta kay ku arkeenow saahidiinta qur-aanka saahidiintuna waxa weeyaan waa dadka ka jeestay adduunyada ee aan adduunyada raadinin amaba adduunyada jacayl badan aanu qabin ee aan isku dhadhajin adduunyada ee aakhiro u jeestay inay ilaahay raalli geliyaan oo dadka cibaadada u tafaruqa ayaa la yidhaahdaa saahidiinta qur-aanka subcisaa jimcayaashiyo saahidiinta qur-aanka maalinta jimcayaasha subcisa ayuu ku leeyahay sibyaanta iyo haweenku sibyaantu waa caruurta haweenkuna waa dumarka calankay sahadsheenoow calankay intaasiba filayeeno waa caruurtii oo sibyaanta ah iyo haweenkii oo dumarka ah iyo saahidiintii qur-aanka jimcayaasha akhriyeysay intaasiba calankay sahadsheenoow calankii ay filayeenoo sahadsheenoow filayeenow macnaheedu weeyaan cidina kaanayna siinee saatir noogu yaboohayow saatir waa magacyada ilaahay mid ka mid a cidina kaanayna siinee saatir noogu yaboohayow waaye yaboohayow ballan qaadayow saatir noogu yaboohayow kii ilaahay noo ballan qaadayow saaxirkii kala guuraye sarreeyow manusqaamow aan siduu yahay eegoe
kaana siib kana saar. waaye sanku neefle dhammaantii khalqiga kii u sinaaye. waaye sanku neefle dhammaantii sanku neefluhu waa shay kasta oo noola ah ayaa la yidhaha sanku neefle. makhluuqaadka ilaahay abuuree faraha badan tee qaar aan sanba ka neefsanin inay jiraana lagaba yaabaaye, laakiin soomaalidu sanku neefle waxay u taqaanaa shay kasta oo aan walax ahayn, shay kasta oo noola ah ayay soomaalidu u taqaanaa maxay ahayd sanku neefle. sanku neefle dhammaantii khalqiga kii u sinaaye calankii dad wixii ilaahay abuuraba u sinaayo mid saaxiib la ahaynow ee aan khalqigaa aan mid gaara saaxiib la ahaynin mid gaara xigta u ahayne dhammaantood ka dhaxeeyayo. imaka khalaa'iqduu sheegaya hadda bini aadamkii oo dhan maaha, soomaalidu weeyaan. saaxirkii kala guurey sarreeyow ma nusqaamow aan siduu yahay eegoe kaana siib kana saar. waaye baydadkaa hore inuu soo maray amaba meerisyada hore inuu soo maray macnahooda amaba hore inuu soo sharaxday. kii saaciidada keenayow saaciidada liibaanta kii keenayow. saaciidadu waa maxay? saaciida imika wuxuu jeedaa liibaan, sacaadu ka wadaa. kii saaciidada keenayow kii liibaanta keenayow calankii uu la hadlayaa. sadadu kay ku xidhnaydow kii ay barwaaqaduba isaga ku xidhnaydow. sadadu waa maxay? waa barwaaqada. asal sada waxaa la yidhahdaa xoolaha gibirkee ninka boqorkii uu ka qaado dadka uu xukumo ninka boqorkii xoolaha uu ka qaaday cashuurta amaba gibirka ah. gibir ama cashuur. xoolaha gibirka ama cashuurta ee ninka boqorkii uu ka qaado dadka uu xukumo ayaa asal la yidhahdaa sado, laakiin imika wuxuu jeedaa barwaaqo. sadadu kay ku xidhnaydow kii barwaaqadu ku xidhnaydow. salaankii istiqlaalkow. salaanka waynu garanaynaa, istiqlaalkuna waa kelmad af carabi ah, waxaana weeyaan waa xornimo. istiqlaalku waa madax bannaanin. salaankii istiqlaalkow salaankii loo fuulayay madax bannaanidu. sayruuqii afrikaadow. sayruuqu waa sayruuq ayaa halkan loo jeeda, waa hubka. sayruuqii afrikaadow hubkii afrikaay. hubkii afrikow calankiibu weli lahadee ma garanaysaa. siraadkiina iftiinshaye. siraadku waa iftiinka ama ilayska ayaa la yidhahdaa siraad, waana kelmada carabiya asal ahaan. siraadkiina iftiinshaye soomaaloo dhan xoreeyayow. saaxibkii kala guureye sarreeyow ma nusqaamow aan siduu yahay eegoe kaana siib kana saar. meerisyada horeynu macnahooda u soo maray. faralka iyo sunnaa iyo wixii diinta ku saabsan cadkii noo saddexeeyeyow. wuxuu ku leeyahay sunnayaasha iyo faralka labadaas kii saddex noogu ahaayo. calan yahow wuxuunbaa kaa qiimo badan, annaga agteeda wuxuunbaa kaa qiimo badan oo kaa sarreeya diinta oo ah faralkeeda iyo sunnaheeda. labadaasi way kaa qiimo badanyiin, laakiin shay kaloo kaa qiimo badani ma jiree adiga ka saddexaada. cadkii noo saddexeeyeyo. cadkii imika wuxuu ka wadaa hilibkii ha u qaadanin. cadkii noo saddexeeyeyo shaygii noo saddexeeyeyo. saaxirkii kala guureye sarreeyow ma nusqaamow aan siduu yahay eegoo kaana siib kana saar. kaana siib kana saar markuu leeyay maxaan idhi waa inaga hore usoo sharaxee. kaana siib kaa uu leeyahay siib oo soo deji waa calankii gumaystaha. kana saar kana waa calankii soomaalida ee markaa loo dabaaldegayay. waayahay ardayahay maanta casharku halkaa haynoo joogo. waxaan idin rajeynayaa wiilaliyo gabdhaba ardaydaydii xanuunka musiibada ayna kala kaxeeyey kuwa lagu salido ee lagu itixaamo inaydaan idinka iyo annaga iyo inta kale muslimiinta dhammaanteen inaynaan ka mid noqonin ee ilaahay naga badbaadiyo ayaan ka rajeynaynaa ardayahay. waxaan idin leeyahay haysdhiganina,
waynu kala maqanahay laakiin casharadu way socdaan oo idinka arkaya soo qorta casharada dhageysta sharaxa ويدنكا تدال وعن آدي آد بو مهدسنتين جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته